السلام عليكم. maanta waxaan qaadan doonaa casharkeenii 37 word listigii qaybta koowaad. waxaan ka bilaabi doonaa kelmadda loo yaqaano alive, waa kelmad adjective oo macnaheedu yahay nolol. alive, if a someone qof or something shay is alive nool yahay, they are not died, maysan dhiman. if a someone or something haddii qof ama shay is isagoo alive nool yahay, they are not died, ma dhiman. my grandparents waalidkay waa dadka waayida weeyaan, are still alive, weli way nool yihiin, even though inkastoo they are over 19 ay sagaashan ku yihiin. my grandparents awoowayayiday are still alive, weli way nool yihiin, even though inkastoo they are over 19. bone waa laf. is a hard part, waa qeyb adag of the body oo jirka ka tirsan. is a hard part, waa qeyb adag of the body oo jirka ka tirsan. I brought waxaan keenay home guriga a nice bone, laf wanaagsan for my dog oo igu leeyahay. I brought waan keenay home guriga a nice bone, laf wanaagsan for my dog igu leeyahay. bother waa dhib. to bother waa maxay? is to make, waa inaad sameyso the effort, dadaal. to do aad saa u sameyso something shay. to bother is waxa weeyaan to make inaad sameyso the effort, dadaal. to do saa u sameyso something shay, markaa waa dhib. no one bother, ma taqaana qofna kuma dhibtoonayo to wash inuu dhaqo the dishes saxamaanta today maanta. no one qofna bothered kuma dhibtoonayo to wash inuu dhaqo the dishes saxamaanta today maanta. captain waa qofka moota hogaamiye weeyaan. a captain waa maxay? person waa qofka kaasoo lead hogaamiya. a ship maraakiibta or ama airplane diyaaradaha, waa qofka diyaaradaha iyo maraakiibta waxyaabaha kaxeeya. a captain waa maxay? person waa qofka kaasoo lead hogaamiya. a ship or ama airplane. the captainkii sailor wuu shiraacay his ship, markabkiisii to Australia. the captainkii sailor wuu shiraacay his ship, markabkiisii to Australia. conclusion waa gabagabeyn. the conclusion of something, ina shay gabagabaysa, is a final part of it, waa qaybta ugu dambeysay. the conclusion of something, ina shay gabagabaysa, is a final part of it, waa qaybta ugu dambeysay. at the conclusion of the race, dhamaadkii mataqaanaa tartanka, the spectators mataqaanaa dadka taageerayaasha jir way xadreeyeen for the winner, guuleystayaasha ay xadreeyeen. jir sacabin macna weeyaan. at the conclusion, dhamaadka of the race tartankii, the spectators taageerayaasha jir way saxabiyeeyeen for the winner, guuleystay ay mataqaanaa saxabiyeeyeen. that waa shaki. the feeling waa inaad dareento of not being sure, waxaadan hubin. the feeling waa dareenka of not being sure, waxaadan hubin. that waa shaki, waxaadan hubin markaa kashkansateenka weyn. the feeling waa dareenka of not being sure, waxaadan hubin. I have a doubt, waxaan hayaa mataqaanaa shaki that the history is true, in mataqaanaa shakada run tahay. I have a doubt, shaki ayaa iga jira that the history in shakada is true, ay run tahay. explore waxa weeye mataqaanaa waa daafeedid ama qarxin. to explore waa maxay? waa is to look, waa inaad raadiso for new places, goobo cusub. is to look for waa inaad raadiso new places, goobo cusub. marka explore qarxna way noqotaa, daafurna way noqotaa. isagu inta wuxuu doonayaa to explore inuu daafuro the world, mataqaanaa dunida, aan si inuu arko new thing shay cusub. iwantis wuxuu doonayaa to explore inuu daafuro the world, dunida, aan si inuu arko new thing shay cusub. foreign waa ajnabi. if at something shay is foreign, waa ajnabi yahay. it's so from different country, waxay ka yimaadeen maxadilo kala duwan. if at something shay is foreign, waa ajnabi yahay. it's from, waxay ka yimaadeen a different country, dalal kala duwan. Mexican food, cuntada Mexicaanku is popular foreign food, waa cuntada mataqaanaa ajnabiga ugu caansan. Mexican food, cuntada mataqaanaa Mexicaanku is a popular foreign food, waa cuntada ugu caansan ee mataqaanaa foreign ajnabi. glad, if you are glad haddaad faraxsan tahay, you are not happy. if you are glad haddaad faraxsan tahay, you are adigu happy, waa faraxsan tahay. glad waa farxad. if you are glad aad faraxsan tahay, you are happy. I'm glad, waan ku faraxsanahay, you come to my party, in xafladeeda timi. I'm glad, waxaan ku faraxsanahay, you come inaad timi my party, xafladeeda. however waa si kasta. means waxa despite, si kastaba. or amase not be influenced by something, inaan saameyn ku lahayn shay kale. however si kastaba means waxa despite, waa si kastaba. or amase not being influenced, inaan macnaha saameyn ku yeelan by something shay. she is a great cook, waa cook wanaagsan. however si kastaba ha ahaatee, she never had professional lessons, weligeed ma qaadan cashiro mataqaanaa xirfadaysan oo ku saabsan waxaan coognimada. she is a great cook, waa cook wanaagsan. however si kastaba ha ahaatee, she never had, weligeed maysan qaadan professional lessons, cashiro mataqaanaa xirfado oo macnaha waxaan ku saabsan. halkaasaan ku qabanaya. wanaagsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.